nebi sulaymaan markuu sheeganayay isna wixii alla siiyey wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu cullimnaa mantiqa tayr wa uutiina min kulli shay isagoo wax sheeganaya wuxuu leeyay yaa ayuha annaas dadow cullimnaa mantiqa tayr waxaana la baray afshimbireedka wa uutiina min kulli shay wax walbana waxbaana laga siiyey uu tilmaamaya wuxuu horraysiistay bay leeyihiin afshimbireed in la baray aqoontu qiimaha ay leedahay isagoo tilmaamaya nebi sulaymaan shimbirtu afkay ku hadlaysa buu garan karayo rabbi baray waxaa qur-aanku uu inoo tilmaamaya dowladnimada sulaymaan oo dowladnimo aada u xooggan ahayd aqoonteeda inay ka mid ahayd basharka daaya inay la dhaqmi karto markaa noolahan yaryar ee shimbirtu ka mid tahay waxaa kaloo qur-aanka warramaya inuu la dhaqmay quraanjo rabbi wuxuu leeyahay wuxuu maqlay quraanjo leh yaa ayuha nnamlu idkhuluu masaakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wa junuuduhu wahum laa yashcuruun fatabasama daaxikan min qowliha baa ilaahay wuxuu maqlay quraanjadu waa xayawaanadan gruubka u nool oo maamulahoodii uu leeyahay ama mid ka mid a ay leedahay quraanyoy nebi sulaymaan iyo ciidamadiisu iyagoo aan idin dareemaynin yaydan marine guryihiinna gala meesha waxaa ka muuqata inuu af quraanjada fahmi karayay waayo ilaahay wuxuu leeyahy fatabasama daaxika min qowliha waa dhoolla caddeeyo waa muusooday isagoo qoslayo warkeeda ka muusoonaya amase ka qoslaya waxaa qisada nebi sulaymaan ka mid ah oo rabbi subxaanaه wa tacaala uu ka warramaya nebi sulaymaan oo u baahday carshigii balqiis in la soo qaado dabeetana koox hortiisa joogta ay ishayso cifriit min aljin uu leeyahay intaanad meesha ka kicin saacaadka shaqada inta aad ku jirto baan keenayaa carshiga rabbi subxaanaه wa tacaala cifriitkaa jinka ah mid ka xoog badan baa laga warramay kaasi wuxuu leeyahay working hourska saacadaha shaqada gudahooda intaad shaqada ku jirto ee aanad ka kicin xafiiskaaga baan keenaya laakiin ilaahay wuxuu yidhi waqaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk kii cilmiga kitaabka la siiyey ayaa wuxuu yidhi anigu waxaan keenayaa ilbidhiqsi in leeg kow kan lama sheegin ma jinba ma insiba ma malagba waa noocma waxaa lagu tilmaamay sifo sheegisteedu ay ku filantahay isaga sheegistiisa waxaa lagu sifeeyey inuu yahay alladii cindahu cilmun min alkitaab aqoon-yahan baa lagu tilmaamay waa aqoon-yahan kitaabka yaqaanay baa wuxuu yidhi aqoon-yahankani inuu malagii inuu jin yahay iyo inuu cid kale yahay ilaahay kama warramin laakiin waxaa laynoo sifeeyey inuu aqoon ahayd waxaanu wax ku keenayay aqoontan wakhtigaa taagnayd ee nebi sulaymaan iyo ciidamadiisana la siiyey waa aqoon aan maanta dunida oolin waayo sariir boqortooyo in saba oo yaman ku taalla laga qaado oo la geeyo falastiin oo nebi sulaymaan deganaa oo lagu geeyo elbiriqsi aqoonta bini aadamka iminka wuxuunbay awooddaa only mala haddii loo diri lahaa asa signal waladiinii kombyuutarradii iyo telefoonnadii waxaan ka warrami jirtay yacni asa signal haddii inta carshiga la dhalaaliyo signal laga dhigo oo la sandgareeyo dabeetana within milliseconds dhanka kale receiverku uu qabto dabeetana dib loo amaamudoo la shaaciyo that's the only technology maanta mala suurtagal ahaan lahaa in ay samayn karto laakiin rabbi wuxuu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala qaala aladii cindahu cilmu min alkitaab ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk waxaan keenaya idan meesha waxaa la tilmaamay wakhtiguu ku keenaya iyo cilmigii know-howgii laynooma sheegin laakiin waxaa laynoo sheegay waxaan ka dambeeyaa inuu yahay maxay aqoon qisada nebi sulaymaan waxaa kaloo ka muuqata haddaynu nidhi aqoon taqniyana way ka muuqataa farsamo technology waayo gabadhii markay soo islaamtay nebi sulaymaan wuxuu iyo kooxdiisii waxay amureen in la sameeyo sarxun mumarad min qawaariir dhismaa la sameeyey quraarad baa la saaray
waxay culamadu biyaha hoosta laga mariyey qaab bay dhalada tani u samaysnayd aanad dhalanimadeeda arkaynin ee biyuhu quri kuu muuqanayaan dabeetana qofka dul maraya qofka markuu meesha soo bilaabo wuxuu odhanaya biyaad maraysaa ayadee ka faydo ila biyuu arkaaye dhaladu waa transparent aan muuqanayn marka biyaha markuu is idhaahda dhex mar qofku wuu faydanayaa boqoraddii waxaa la yidhi qiila laha dkhuli sarx na halkan mar baa lagu yidhi falamaa ra'athu xasibathu luja wa kashafat can saaqayha baa ilaha yidhi markii ay meesha soo martay waxay u malaysay meel qodanoo dee biyo ku jiraan dabeetana dhudhumaday faydatay qaala innahu sarxun mumarad min qawaariir waxaa lagu yidhi waa dhismo mumarad ah mumaradku yacni waxa weeyaan amrad laga dhigay sisib ah very smooth ah corrugation aan lahayn qoladii farsamadu bahash yareed ay saari jireen marka la saaro wax hawi waa dhismo aanu ka muuqanayn siman oo min qawaariira ka samaysan baa la yidhi quraarada ka samaysan idan waa technology muujinaya biyihii inaad garan karin meeshu inay biyaha rasmiya yihiin iyo inay dhalo tahay aanad garan karaynin qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa nebi daawuud kow aayaad waa kaynu xagga hore ku soo marray in cilmi la siiyey walaqad aataynaa daawuuda wa sulaymaana cilmaa taqniyada marka laga warramayo qur-aanku wuxuu ka warramaya maxay وألنا له الحديد أن اعمل صابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وألنا له الحديد وحن أتشل عنا يبا إلهي حديدك آيرانك دبتنا وحلوين أن اعمل صابغات وقدر في السرد واحد سميسا دروع صابغات قلب كان لغو دقال قاله سيفتا إياه وحكين علينا إياه وقدر في السرد حلقيدنا waxay yidhahdeen nebi daawuud farsamadii ugu horraysay bergerigii hore waxa la qaadan jiray bir isku taxan laakiin birta in laga dhigo xalaqaad yaryar seer kalis yaroo la isu sursuro oo silsilada yaryar laga dhigo silsilada aan warankiiyo seeftu toona geli karin laakiin jidhkoo dhanna lagu qarin karo silsilada inay noqotaa waxay samaynaysaa flexibility jidhku wuxuu helayaa inuu ila wixii waa silsilada way kala dhaqaaqaysaa inuu dhaqdhaqaaqo oo uu qofku dagaalkii si fiican uu geli karo waxay kaloo samaynaysaa inaanu soo gelinna maxay bahalkii waxay kaloo samaynaysaa inay fududaato oo birtoo dhamme hadday malaasanaan lahayd dee meelahan daldaloo dhan wasni baa hadhay miisaankii badh baa lumaya idan waa technology cusub oo technologigii markaa yaallay ka gedisan oo hadday tahay fudayd hadday tahay costkoo ka yaraanaya kii hore qiimahoo yaraanaya hadday tahay flexibilitygeeda iyo siduu qofku u dhaqdhaqaaqi karayo tiro badanaysa farsamo cusub buu sameeyey sideedabana adduunkan ay maanta aragtaan wuxuu horumaro qura markii la gartay xadiidka qaabka loola dhaqmo technologygan cusub aa arkaysaan dhammaantii wuxuu horumaray markii la bartay xadiidka iyo sida loola dhaqmo birta in la tumi karo aanay jabinna 19th centurygii bay dunidu bilowday productionkeedan tirada badan leh birta in la adkayn karo ama stiil laga dhigi karo ama noocan kale laga dhigi karo ama maadooyinka kale lagu qasayo iyo noociyaadkeeda industriga dunidu markuu bilaabay inuu birtaasi samayn karo qaybii ugu horreeyey taariikhda sayniska taarikhdiisa haddaad dib ugu noqoto ingiriiska markii ugu horreysay birahan yar uu samaynayay suulishku ka soo qaateen tijaabo yaroo aada u liidatay ahaayeen laakiin tijaabooyinkaasi wakhtigay guusha gaadheen baa industriga weyni bilaabmay waayo industrigu dhammaantii hadday hubtay hadday wax kala tay everything bir buu ku xidhan yahay birta in lala tacaamuli karaa waxay sheegaysaa inay tahay technologyga asalka uu ka intilaaqo ilaahay subxaana wa tacaala nebi sulaymaan wuxuu tilmaamayaa waalanaa lahu nebi daawuud waalanaa lahu alxadiid nebi sulaymaanna ilaahay wuxuu leeyahy waasalnaa lahu cayna alqitr waxaanu u dhalaalinay baa la yidhi cayna alqitri nuxaasta oo yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariba watamaahiila wajifaanin kaljawaabi waquduuri raasiyaat bale qur-aanku wuxuu tilmaamaya laqad arsalna rusulana bilbayinaati waanzalna macahum alkitaaba walmiizaana liyaquuma annaasu bilqist waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiida wamanaaficu linnaas ilaahay wuxuu israaciyey
rususha la soo diray ee kitaabka iyo miisaanka iyo cadaaladda lagu soo diray iyo xadiidka in ilaahay soo dejiyey baa ilaahay soo raaciyey la tilmaamaya inay noloshu labada tan ay ku salaysantahay